رئيس وزراء وزيرها بعض الصحافة ضد Soomaaliyeed meelaha joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh si faahfaahsan oo noogu akhriyay warmurtiyeedka uma malaynayo hadda wax badan inaan ku soo kordhin karo laakiin si kooban haddaan u dhaho shirkan wuxuu ku saabsanay in la qiimeeyo xaaladda dalka xag amni xag siyaasadeed waxaa soo baxday labadii maalmood oo shirka uu soo socday kow horta khatarta al-shabaab ama khatarta argagixisada inay soo kordhayso dawladuna arrintaas sidii la rabay aysan uga howlanayn marka baaqa koowaad in dawladda loo diray inay u jeesato hawshii loo idmaday oo ahaaday difaaca dalka waxaa la socotiin meelo badan oo laga xureeyay inay hadda dib ugu soo laabteen meelo kalena ay qorsheynayaan inay ku soo laabtaan dawladuna ay aad ugu mashquulsan tahay waxyaabihii lagu kala tagay oo looga digay sanad ka hor oo ay ahaaday beddelka dastuurka samaysasho maxaan ku yiraahdaa sharci doorasho guddi doorasho aan loo dhamayn aan la socotiin magaalada muqdisho inay ka socoto maxaan ku yiraahdaa dadkii dhaqdhaqaaqooda in la hor istaago qofkii laba mar saddex mar in suuragal tahay in la istaajiyo ayadoo la leeyahay isqor ayadoo magaaladu aysan lahayn maqaamkii ayadoo aysan lahayn sharcigii inay taas u dhacayso sidaas oo kale waxaa la socotiin waqtiga hore inuu aad u yar yahay aan lagu qaban karin waxa la sheegay oo isdul saaran doorasho deegaan doorasho maamul goboleed iyo doorashada federaalka aan lagu qaban karin marka waxay u baahan tahay aragti hufan oo doorasho oo keeni karta in dadku ay ka wada qayb qaataan heshiis lagu yahay doorashada dalku uu ku galo waqtiga dhiman marka madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa inaan la ogolaa doonin muddo kororsi waqti ku filan oo doorasho lagu qaban karaan haysanaa in laga wada hadlo la isugu yimaado dadka maqan kuwa jooga la isugu yimaado doorasho loo dhan yahay la galo maamul goboleedyada dawladdu ay hortaagan tahay oo waqtigoodu dhamaaday oo la cadaadinayana la fasaxo doorasho xura oo xalaala oo loo dhan yahay oo laga wada qayb qaadan karo in la qabto dalka loo qabto arrimahaas madashu sababta ay sidaas ugu aragto waxa waaye dalkan waxaa heshiis lagu yahay 4 sanaba inay doorasho dhacdo korna loo qaado doorashadaas hufnaanteeda nambarka kaliya ma aha khaladaad badan ay leedahay khaladaadkaas in laga saxo waqtigana la ilaaliyo marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba inay ogaadaan horumarka iyo horu socodka geedi socodka nabaddu wuxuu ku jiraa dawladnimada doorasho hufan oo la qabto midda ugu dambaysa waxa waaye barihan waxa aad u soo batay dacwooyinka ka imaanaya cadaadiska dadka shacabka ku imaanaya gaar ahaan kuwa dhibanayaasha ah codkooda baahiya ama cabashadooda baahiya